halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah ra'iisul wasaare Roble oo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan su'aalo ka weydiiyay amniga magaalada Muqdisho iyo weerar al-shabaab ay ku soo qaadeen magaaladaasi ciidamo iyo saraakiisha sarsare ee haram cad oo xabsiga la dhigay kadib faal la yaab loo ay ka geysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Puntland oo wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan u diiday inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka golaha shacabka ee laga soo dooranayo magaalada Boosaaso iyo xiisad halkaas laga dareemayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo weerar adag ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo taliyaashiisa ciidamada kadib markii ay kordheen falalka amni darro iyo weerarada al-shabaab ay ku soo qaadayaan magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsanayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato subscribe saar YouTube-kan kala mid noqo asxaabta ku xiran mahadsan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa iskugu yeeray dhammaan taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan asagoo su'aalo ka weydiiyay xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho taliyaasha iyo saraakiisha amniga u xil saaran ayaa la weydiiyay su'aalo adag oo ku saabsan xaaladda amniga oo faraha ka sii baxaysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa saraakiisha booliska iyo nabad sugidda weydiiyay sababta ay uga jawaabi waayeen weerarada iyo sida ku suurta gashay in magaalada Muqdisho xilli dhexe oo habeen ah al-shabaab ay weerar toos ah ku soo qaadaan ra'iisul wasaaraha ayaa saraakiisha ugu goodiyay shaqada laga ceyri doono cidii aan aqoonsan shaqooyinkooda muhiimka ah waxaa ka qayb galay kulanka uu shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidanka nabad sugidda ee ku meel gaarka Yaasiin Faray taliyaal ku-xigeenada iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha booliska gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay in aan loo dul qaadan doonin in saraakiishu ay ku mashquulaan arrimo siyaasadeed iyadoo loo baahan yahay inay sugaan amniga caasimadda waxa uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan ciidamadu ay heegan galaan tallaabooyin dheeriya la qaado gacantana lagu soo dhigo cid walba oo fududeysay in amniga caasimadeeda uu faraha ka baxo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa faray saraakiisha iyo wasaaradda amniga in ay la yimaadaan qorshe amni oo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa amray in xabsiga la dhigo saraakiisha sarsare ee ciidamada haram cad iyo ciidamo ay hogaaminayeen oo jirdil iyo gabad falle xoogan u geystay wariyaal doonayay in ay ka warramaan weerarada al-shabaab ay ku qaadeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir arrintan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen muuqaalo argagax leh oo muujinaya ilaa iyo 3 suxufi oo ka hawlgala warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho oo ciidamadu ay jeebeeyeen kadibna ay xabadka dhulka u dhigeen arrintan ayaa ka dhacday saldhigga degmada Kaxda oo habeenkii xalay ay weerareen ururka al-shabaab taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in xabsi guri la geliyay dhammaan saraakiisha sarsare ee haram cad iyo sidoo kale ciidamada ay wateen oo ku eedeeyeen inay falkaasi si ula kac u sameeyeen taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sharciga la soo taagi doono saraakiisha falkan ku kacday oo iminkaba baaritaan ay bilaabeen maxkamadaha iyo dadka ku shaqo leh in lagu kacafal noocaas ayuu ku tilmaamay inuu ka hor imaanayo dhammaan xeerarka iyo qawaaniinta u yaala Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka asagoo ka digay in saraakiisha ciidamadu ay adeegsadaan awooda sida hadalka loo dhigay ciidanka falkan ku kacay ee dhibaateeyay suxufiyiinta waxa horkacayay taliyaha ciidanka haram cad Fanax waxaana ka mid yahay saraakiisha la sheegay inay ku caanbaxday inta badan xadgudubyada ka dhanka saxaafadda balse tilaabada lagu qaaday ee xabsi guriga looga dhigay saraakiisha ciidamadana lagu xirxiray ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay doonayaan inay geesis kaga leexiyaan eedeymaha ka imaanaya dadka u dooda xuquuqul insaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhaleeceyn xoogan kala dul dhacay booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in xeer ilaalintu ay wado baaritaano falkan la xiriira aan la aqbali doonin in lagu tagrifalo awoodda guud ee dalka
iyadoo faraha ka sii baxaya ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa ay ku tilmaameen falalka ka dhacaya magaalada Muqdisho inay yihiin kuwa muujinaya in amniga guud uu faraha ka baxayo wax ka badan dhowr iyo 10 sano. Agoosto sanadkii 2011 ayay markii kooxda argagixisada Al-Shabaab laga saaray magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. weerarkii tooska ahaa ee xalay degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir iyagoo gaariyaal ay lahaayeen ciidamadu halkaas ka wateen ayuu nasiib darro ku tilmaamay wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in 10 sano kadib deegaanadii magaalada Muqdisho ee xorta ahaa ay muuqdaan inay dib gacanta ugu galayaan weerarada iyo dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in ciidamada dawladda laga leexiyay jihadii iyo sidoo kale hab dhismeedkii ku saabsan la dagaalanka Al-Shabaab. muddo 5 sano Al-Shabaab waxa loo fasaxay in ay baad ka qaataan dekedda magaalada Muqdisho ganacsatada kala duwan. haddana waxa loo fasaxay inay sida muuqata iyagoo burburinaya wadooyinka magaalada Muqdisho ay soo weeraraan saldhigyada iyo goobaha muhiimka waxaa la joogaa xilligii dalka si wada jir looga badbaadin lahaa kooxda manaxayaasha ee filla Soomaaliya iyo Al-Shabaab argagixisada. intaas ka badan looma dul qaadan karo lamana xamili karo ayuu yiri wasiirkii hore ee amniga Axmed Macalin Fiqi. eedeymaha ka imaanaya siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa kordhaysa. 5 sano oo la soo dhaafay waxa ay dawladdu sheegaysaa in la dhisay ciidamo awood u leh ka hortagga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, balse iminka magaalada Muqdisho gudaheeda ayay dadka cabsi ku seexanayaan. dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay go'aan ka gaartay in wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ay saaxiibo dhow yihiin Farmaajo uu xildhibaan ka noqdo deegaanada Puntland baarlamaanka ka soo baxaya. xukuumadda Puntland ayaa la sheegay inay go'aansatay inay karkaarka wadaariso wasiir Jamaal oo ay gabi ahaanba ka reebto tartanka. lama oga qaabka ay uga reebi doonto iyo wadada ay u mari doonto, balse waxa la sheegay in Siciid Cabdullaahi Dani ay ka go'an tahay inuu meesha ka saaro Jamaal oo ku bedesho qof asaga taageersan. wararka qaar ayaa sheegaya in qoondaha weyn laga dhigi karo kursigan iyadoo dadaalo xoogan oo wada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. doorashada magaalada Boosaaso ayaa lagu qabanayaa goob xero ciidana waxaana la sheegay in si weyn amnigeeda loo ilaalin doono. wasiir Jamaal ayaa isagu maanta gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaas oo ka bilaabayo ololihiisa ku wajahan kursiga iminka uu ku fadhiyo oo uu doonayo inuu mar kale u tartamo. warkaad ka daawanayseen Dunida TV waaga intaas sidaas iyo nabadgelyo.